wanaagsan channelka aan naga daawanaysaana waa Ajmal Channel asxaab channelka ku xiran kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalada channelkan kusoo bandhigo qaybtii waxa waaye ku arki jirteen degmooyinka iyo xaafadaha iyo suuqyada magaalada Muqdisho maanta waxaa joogaa City Mall oo ku taala Xamarweyne suuq weyn ah hore waxaan idinku soo bandhigay suuqyo waaweyn ee fara badan Muqdisho maalinta ka dambaysa way horumaraysaa horumarkeedana waa shayga kaliya oo aan rabno bidnilaahi kadib muuqaalkan waxaan idinku tusinayaa City Mall iyo waxyaala iyo sida ay u taalo baad uga badan doontaan muuqaal dhammaystiran ee aad u qurux badan ee aad looga fikiray intaan diyaarin ka hor waa maasantihiin sida quruxda badan ee aad mar walba ugu duceysaan aad ii kala taagan tihiin shukran lakum daawasho wacan waxaan muuqaalkan idinku tusayaa suuqa Xamarweyne meeshaan waa dahabshiil agagaarkeeda dahabshiil bank Xamarweyne aan joognaa waxaan isleeyahay dee waa suuq aad u diyaarsan qaybtan hore waxaan idinku tusayaa banaanka suuqa Xamarweyne ilaa suuqa bacadlayaasha afkooda hore qaybta dambena insha Allah waxaan idinku tusi doonaa City Mall ama suuqa weyn ee City Mall horaan waxaan idin tusiyay Muqdisho Mall iyo meelo kaleeto muuqaalkana maanta waxaan jeclaystay inaan idinku tusiyo City Mall iyo aakan wadadan waa wadada ugu ganacsiga badan ugu mashquulka badan markii la yiraahdo Xamarweyne waa wadada inta ugu badan hantida ay taalo shacabka oo yaalaan bankiyadii shirkado waaweyn hoteelo sidoo kale suuqyada waaweyn City Mall iyo Muqdisho Mall way iska soo horjeedaan waa laba dabaq ee bidix iyo midig iga kala xiga dhankayga midigna waa City Mall dhankayga bidixna waa Muqdisho Mall المهم intaanan hore u gelinin suuqa weyn ee aanan hore moolka idin tusinin waxaan rajeynayaa ama aan jeclahay inaan idin tusiyo muuqaal intaan yar ee banaanka ah ee aad cajiib u ah ee soo jiitay maasha Allah tabaaraka raxmaan Soomaaliya iyo Muqdisho dhan waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu siiyo amaan kaamil ah oo dhameystiran inuu siiyo deganaan inuu siiyo horumar iyo bilicdan hadda ay haystaan mid ka balaaran Ilaah baan taa ka rajeynaynaa tanna Ilaah baan uga mahadinaynaa oo aan leenahay alxamdulillah meeshaan birta taalo saad arkaysaan suuqa qaybtan gudaha in bajaajyada iyo gawaarida ay u soo galaan lama ogolo saa darteed socod un baan ku dhex maraynaa oo hadda waa aragtaan muuqaalkan oo dhan waa socod waxaan haddana ka taxadarayaa inaan dadka aanan kaamirada ku qabanin anigoo iska garab socday waxay leeyihiin kaamirada naga ilaali haddaynan ogolayn inay kaamira qabato in laga ilaaliyo almuhim qaybtan waa qaybta bacadlayaasha dharka miisaska lagu iibiyo iyo suuqa intiisa kaleeto waxaan hore u soo aaday oo aan muuqaalka hadda gudaha u soo galay ee aan rabaa inaan idinla wadaago waa City Mall waa suuq sidoo kaleeto lamida suuqii Muqdisho Mall iyo suuqyada kaleeto ee xamar ku yaala City Mall qaybaha uu ka kooban yahay qaabka uu yahay waxa yaala intaba waan wada arkaynaa si wada jira baan u wada daawanaynaa haddii ay baweyna uu qadaro oo Allah uu raali ka noqdo waa qaybta baakinka kawaarida horaan uga soconaynaa waxaan gudaha u galaynaa haddii Ilaahay uu qadaro suuqa weyn ee City Mall qaybtiisa banaanka ah waa kana waa City Mall waa aragtaan gudahan u galaynaa waxaan ugu talagalay inaad dabaqa kor idinka tusiyo maadaama aragteen gudahan u soo galnay wuxuu ku bilaabanayaa qaybtiisa gudaha ah waa sidaan waa qaybo sidii Muqdisho Mall oo kaleeto qayb walba waa ijaar oo qof bay ka ijaaran tahay oo ganacsi ku haysta qofku wuxuu rabo keensanayaa waa aragtaan qaybtan suuqa dhan gudaha dhexdaan ku soconaynaa oo dabaqana kor baan u aadaynaa inta qayboodu ka kooban yahay inkastoo qaybaha ugu koreeyo la degan yahay uu hotel yahay haddana qaybaha ganacsiga uu ku egyahay baan wada gaari doonaa haddii Ilaahay uu qadaro
qaybtan shopping soo dhaweyn ah baa yaala bilaash ma aha laakiin indhaha lagu soo dhaweynaya inaa si xeel dheer u aragtaan baan rajaynayaa insha allah suuqa jawigiisu wuu degan yahay maadaama aan imaaday ama aan beegsaday maalin jimco ah maalmaha kale aynan suuroobeynin inaa muuqaal noocaana ka diyaariso annagana muuqaaladeena waxaa muhiim ah inay dhaxalgal noqdaan aynan noqonin muuqaal uun orod lagu sameeyey oo muuqaalo taariikhi ay noqdaan saa darteed waa inaa hesho nafis meel aada wax ku duubi karto kaaga suurtoobaya muuqaalku inuu muuqaal dhammaystiran kuu noqdo kor baan usoo raacaynaa dabaqa qaybta labaad baan arkaynaa ayadana waxa yaala iyo sida ay u dhisan tahay iyo sidoo kaleeto waxyaabaha lagu iibinayo xafiiska City Mall waa aragtaan markaad rabto inaad wax weydiiso macluumaad ah meeshaanaad imaanaysaa aniga laakiin hadda wax macluumaad oo aan weydiinay ma jiraan waayo kaliya uun waxaan u imaaday inaan idinla wadaago muuqaalka suuqan sida uu yahay sidoo kalena aan taariikh ahaan keedka u geliyo suuqan muuqaalkiisa maasha allah waxaad arkaysaa suuqu inuusan banaxor lahayn marba haddaanan lagu iibinaynin waxyaabaha dumarka isticmaalaan hadday yihiin shopping iyo dhar iyo gabo iyo wax walba dabcan ragga way ballaaran yihiin ayagana waxooda oo meel kastaa lagu iibiyaa laakiin waxaa aada u badan ay suuqyada ku badan waa dharka dumarka waayo ayaga aada loo iibsadaa qaybtaana waad aragtaan inaan bal ayadana ka gudbo oo aan kor u raacaan rajaynayaa si aan bal korna usoo fiirino waxa yaala iyo sida ay tahay koraan u raacaynaa jaranjaradaana koraynaa insha allah kadibna waxaan isla fiirsan doonaa bal qaybtan kore sida ay ayadana tahay muuqaalkeeda qaybta kasii koreyso oo hadda qaybtan hadda aan idiin sheegayo waxa uun doonayaa inaan fiirino waxa yaala haddii ay tahay qaybtii deegaanka ahayd ee dadka ay deganayeenna aan kasoo noqono oo suuqa kor ooga soo qabano dabaqa markaa meel koro tagto waxaa kuu suurtoobaysa bilicda intiisa hoose inaad la wadaagto dadka taabaan fiirinaynaa oo kor inaan kaamirada uga soo qabano oo aan idin tusino sida uu yaalo gudaha qaybihii hoose oo aan kasoo tagnay muuqaalkeeda sida uu yahay meel kastoo muqdisho aad ka tagto waa meel qurux badan si kastoo ugu dhex socotane sidoo kale ka daalimaysid kolley qof walba waxaa aada u xiiso gelinaya oo uu jecel yahay dhulkiisa hooyo inuu u hormaro inuu ka helo wax walba u baahan yahay inuu dhulkiisa hooyo ka helo qaybtaana waa qaybta maqaaxida waa maqaaxi aada u diyaarsan qurux badan hawadeedu ay fiican tahay magaalada kor laga arkayo sidoo kaleetana waxaad ka cunaysa aada ku cunayso si raaxo leh oo qabow ah kuleyl aan ahayn kar iyo waxsaas aan lahayn dabaqa markaan kor uga soo qabanay kaamirada qaybtiisa gudahani waa nooca waa markaa hadda kor aragtaan waa kaa maasha allah tabaaraka allah
المهم مقاحي نواتا dabaqina waa kaas asagoo dhammaystiran qaybtii koraan soo aadnay haddana waan iska sii degaynaa waayo waan gaarnay yoolkeenii ama hadafkii aan lahayn waxaan rajaynayaa muuqaalkan inuu si qurux badan idinku soo gaaro wassalaamu calaykum waraxmatullahi